بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta badan bulshooyinka Soomaalidu waxay la socotay in deeta caddi nagu dhacay oo la arbishay oo ani hooyadayna la dilay oo aan la wadaagay baraha bulshada iyo qaybaha warbaahinta kala duwan waxa la sugayay dadkii madaxda u ahaa dadkiina laayay ciidanka markaasi meeshaan tagnay ka ahaa waxay ahaydee in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii daasta masaraakiideed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedaniya oo aniga isu soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka oo toona lahayn abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa ilaa igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahday halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bixoo ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga aynantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaan de aan sida harka cad u adeegina maana service bixinay laamaha kala duwan ee dawladdu wuxuu yiri nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yiri intay soo degtay askariga dhawanaanisa wuxuu yiri garsoorkan la tigsanayna nootaay sharciye saxiixeen wuxuu yiri cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo qodob dul istaagaya ta koobaad ah saacada aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqo la ama 6:40 minute inay ahayd abaara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ee anigu aanan filaynba u bartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkinkan galay oo leeyga dhaqaajin waliba halkeen dhigaa oo halkan dhigi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu hore u gal oo igu hada garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibihi xarun dawladeed yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlay waxay ahayd in been la sheego been run u eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel soo istaaga la yiraahdo arjuuqday iyo ku yiri juuqde laakiin may hayn in la yiraahdo halkaas ay xoog ku galeen iyo halkaas ay askari ku dhabanaanisay iyo halkaas ciidanka booliisku wax ku baahnay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo eheladaydii toona ay ka filayeen ciidankana ma noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar meel dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas'uuliyad ku saaran tahay oo mas'uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wada ogtahay oo si fiican baad noo garanaysaa
xalay luuqad kale ku hadlaysay inta nooti maadad eegi lahayd waxaanu qabno laakiin hal libaax arkaysaa ma godlato hal libaax arkaysaa ma godlato marka aniga hadalkaagu arrinkaygana ma daadifayn karo waxaan qabana ma nabaradan qabnana ma afuufi karo nagama biin karo qofku waa inuu feedback kaga soo noqday eegaaye beedkaad ka hadashay ee aad anaga noogu jawaabaysay aad soo gashay daadifaynteedii iyo duudsigayga iyo dulmigayga u soo gashay waxa faale lagaaga dhibtay ba marag cad noo ah waxaan kugu boorinayaa inaad ku laabatati kuguma ogi damiir ku laabtay oo adiga iyadoo gurigayga kaagu inta isu jiraan aan adoona soo dul joogsan aniga iyo hooyaday gacan ciidan ugu dhacday oo nabaradayadii iyo wixii naloo geystay waxna dhaqaatiirtu cadeeyeen waxna ay kuwa naga muuqday korkayga ka muuqday yihiin aad arkayso daadifeeyay hadii aad maxaan ku dhaday damiir ku jiro aniga maanta horta iimaad jawaabteen adoo gurigaagu inta ay jiro aanadii soo galin waxaan intaaba ku soo dhaafaya beeni raad male beeni raad male afar nin oo waaweyn oo ninkii intuu jeelka iigu yimid taliyihii qaybta Muuse Xasan Kaahin intuu jeelka iigu yimid telefoonkayga priority-ga siiyay ee jana ku xigeenku soo diray ee aan maxaan ku dhadayay oranin maxaa qabtaan uu ka mid yahay xalay ku ag taagnaa shaarka ciidanku ma aha kuwa dadka lagu bahdilo oo wax bulshada loogu adeego cashuur baanu bixinaa magaaladan ku dhalanay baanu joognaa in la yiraahdo nabaradayada iyo wixii loo geystay gacan saarka nagu dhacay la duusiyo ma yahayn waxaan mar kale maragu qabsanaya bulshada reer Somaliland oo si fiican u taqaana axmadnimada iyo anshaxumada boolisku kula kacaan cidii ay haleelaan anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan marag cad u qabsanaya haddaan askari dhabanaaniyay 24 saacadood ma xidhnaan lahaa haddaan askari dhabanaaniyay si sibiqo la doonay in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn lahaa de hadal iyo wax la yidhi waxba laguma dhaafee nabaradaanu geysanay iyo dhaawacyadaanu geysanay waanagan hadlaynaa halala hadloo hana la tuso oo ehel baanu ka dhalanaya loo keeno anaga laakiin sharka dawladana lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ahaa ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay aabay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa aabay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay waa ayaan daro in maanta mar kale aniga niman calool waaweyn intay meel isu soo kay taagaan oo darajooyin isu soo kay sudaan ay yiraahdaan 2021ka 2021 sano kadib 12 bilood baan jiray maalintii aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyadan nasiib wanaag hadaan xabad ku dhufan Somaliland waa beelay isu yimid qaran haduu jiraan cadaaladayadaan heli lahayn la maacmaacay intaasoo meelood maxaan ku dhaday intaasoo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faysal iyo nimankii ag taagnaaba waxaan leeyahay maqaar saar waxa dar kullu mi karaa ma jiro wixii geysateen ee shaarka dawladda ku geysateen idinka maxaan ku dhaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladdan ku maqnahay kamana hari doono wixii aniga iyo waliba hooyaday nagu dhacay wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax inta la yiraahdo in lagu baraqjin karana ma aha anagu dhibanayaal baan nahay aniga hooyadayba waa la dilay shaarka dawladdan lagu dilay inta shicibna dilay oo dhaqaaqay naga mutagin waxa weeyaan inta meel la isoo taagay dadka waxa loo geysto la maacmaaco soo sooray baan leeyahay in waxa soo kale dhaqanka Soomaalida hablaha iyo haweenka xurmadooda ilaaliyay in anaga inta xijaabadina laga dhigay aniga iyo hooyadii bootimaan la jido jibniisa ligan lagu galiyay in la yiraahdo askari bay dhabanaanisa askarigan dhabanaaniyay cadeyntiisii iyo anaga dhibaaxooyinkoodii waa kuwa naga muuqdee
iyo wixii nagu dhacay cadeyntoodii waanu la imaanaynaa wixii ku dhacay cadeyntoodii dhibanayaasha la yimaadaan mar kale shicibka booliiska Somaliland si fiican baa loo yaqaan inta gabadha askar dhabarnaaniso aanay 24 hours xorriyad ku hesheena cid kasta maraka ah anaka waana la dilay waana la daandaansaday waana la xiray waana la jir dilay si bahalnimo laba jirkeyga loo dilay wali jirkeyga qaybaha hoose aan mariyaha ka qaadi kareynin de waxaan leeyahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah faysal xiisa wadii lagu yiri sidaa dhe oo tiri anaga waxba nagamay bedelin waxba nagamay bedelin ilaa darguudkiisa lama dhayo waxaan kulay marka xigtada hadlaysa intaad been sheegto been run oo sheeg markasto ay dadka tacadi ku dhacaan waxa u sameeysan waji kale xalay markaad hadlaysa hadalada waxa kamid aha ama cid kale dabada ka riixaysay ma waxa doonaysa inaan cuqdad qaadno oo bulshada Soomaaliyeed kala jeclaano ma waxa doonayseen in anagu reer meel degan oo wadankoodii ku nool oo magaalada ku barbaaranay ku dhasheen aniga iyo hooyadii Hargeysa ku dhalanay oo inta dhex joognay ma waxa doonayseen in maxaan ku dhaadayay waxyaabaha ku tiri ku taanka iyo waxyaabaha bulshada u adeegsataan ee warbaahinta qaarkeed idinka qaxeen ee ilaa maanta guryahoodii ugu soo guriyo noqon kari laayihiin ee qaarkood waalidkooda dhintay u iman laayihiin ee qaarkood jeelasha ugu caadeysateen ila moodayna iyagii xabsigu isa soo raaceen markay dhasheen waxa doonaysan in qaabkaas oo kale anaga xorriyadeedii iyo jiritaankayga ku lumisaan waxa doonaysan in magaalada idinka tagno ma waxa doonaysan in majara habaabin ku sameeysan dulmiga nagu dhacay waji kale u yeeshaan anagu cuqdad ma qabno dadka Soomaaliyeedna ma kala jecelin dadkana moodaysan ma nihin xaq waxaan u leenaynaa laamaha cadaaladda ka eeganayna laamaha cadaaladda hadii wax noo qaban waayaan Somaliland waa beelaysi yimid 1993 ba berbera 1993 ba boorama lagu heshiiyay shir beela ka midaysan yihiin oo samaroon marti gelisay oo isaaq tagay oo marti ku ahaa isaga laftiisu wixii la isla soo qaatay waxay ahayd in sharaf iyo xorriyad iyo jiritaan lagu noolaado war wixii ummadu lahaydeen waxbaan u dagaalanay ee qarankii u burburiseen ma waxay ahayd in maanta anaga inta halkan lagu dhaxduusiyo meelan u dacwooniyo meelan u ciirsano baanu garan weyno maxaa doonaysan ma inaan fataano nida Soomaaliyeed baanu aaminsanahay maxaa doonaysan ma in noor baadhaan oo calool baadhaan maxaa doonaysan wargii meel Soomaaliland wax kaga sheegay oo aan ahayn araada guud ee ama warbaahinta ama dadka kale ay shaqada ku leeyihiin shaqada yadii ah ee aan wargii aan meel Soomaaliland wax kaga sheegay iyo meelan ku dhibaateeyay iyo meelan nimanka ciidanka laftooda wax ugu sameeyay oo aan ahayn in iyagu inta kibir nagu soo doonteen nabahdileen ma jirto waxay in hadar hadii lagu hadal oo lagu yiri sidaa dhe annaga ciidanama ay oran dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo adigana shaqada iyo mushaharka qaadato iyo dadka ku soo diray iyo kuwa ku ag taagan kula sidaa dhe xalay hadalka ku hagaajinayay ayaa ku farayay inaad hadasho hal liba xarkaysa ma godlatay been sheego been run oo sheeg Faysal Xiiso hadii laamaha cadaaladda iyo garsoorka aan anagu la tigsanay dhibaatooyinkii nagu dhacday ay waxba nooga qaban waayaan inamadii reeraay anaga waxna yeelay ee shaarka idinku u soo xidhateen ee darxumada iyo soo jeedkay qabaan shacabka ka jaray cilqabayaasha ah ee idinkuna tiraadaan marka dadka soo cuntaan sidii bahalaha anaga idin hadli doona imshaarka kaliya waxa ku qaadataan ay tahay ilaa hadii umada dhaxootiin oo madax qarantiin annaga arinkayga iyaga arinkayga iyo arinkooda ay soo eegi lahaydeen abashadeedii la waxay soo gaadhay laanta ugu sarreysay waxa weeyaan hadii annaga arinkayga waxba laga qaban waayo oo sida direyskiina lagu dilay nalagaga gar qaadan waayo waxa dhici doonta anaguna eelaanu ka dhalanay oo reeraanu ka soo jeedna oo reerihii heshiiyay wax isku darsaday baanu ka mid nahay haday taasi dhici weydo
oo dawladda iyo inamada cidda u shaqeeya naga gar qaadan weydo oo waxa nagu dhacay la eegi waayo reerahoodii baanu doonan doonaa deetana qaranku iyadoo kaga fool xuntay oo Soomaali weyn marxaati u tahay oo reer Soomaaliland marxaati u yihiin oo ceebtoodu dibadda taalo ayay arrinka gacanta la soo gali doonaan haddana maanta arrinkayga gacanta la soo gelin haddii lagu yidhi hadal Faysalow anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjiribka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanaya idinkoo darajooyin la aniga oo inaan yara isa soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cuna marka damada dadka Soomaali weyn ku shaambadaysaan Soomaali weyn deed dulmi ba xuduudo u kala samaysateen oo la haydeen dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay asheegi jirteen idinku beelu ka jira anagu maanaan aragay musabixi markii aniga aabahay la diran 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuha iyo amniga maanta marka aniga leeyahay xabad nasiib wanaag magaana xabad kugu dhicina walaanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtay Faysal Xiisa daladiisa waxa kamid ahaa hoodoy lama soo xiriirin hogaanka cabashada war hogaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexnoo ahaado hogaanka cabashada may jananka xigeenka ciidamada ay ku simii jananka ciidamada ay wadankaba ka si jananka aba ka sareeyo ka udhi mise hogaanka cabashada sareeya warna garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo komishanka xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgali doona haddii inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan haddii inta dadka tacadid waxa muuqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo maxaan ku dhahdaayay waxa iyaga waxba laga qaban waayo aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa ida naga filaneen baa naga keenan doona waana calool baadaysaane waxaan umadu naga filan dhagay fard la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carari mayna ilaa aan aarsano carari maayo ilaa inanka ka yaraayo hooyaday feerjiribka ku garaacay qabto feerjiribka soo garaaco waa wallahi inaan cararin oo aanan argaysan ku dhalanay ka tagayn oo aanan dadka gardaamisana geeriyaha waalidkood iman waayay aanan ka mid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka cuqdadaysan ee waxba barin lagu sameeyay gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dib ugu filan cadaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa la igu hordilay warin hooyaday feerjir lagu hor garaaco hortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka jeegaysa ila tigsa Faysalow irka hadaad ila baxaysa ila bax Faysalow arrinka hooyaday iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos ma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan doono halka u sareysay cadaaladeen isla gaari doona cadaalada ilaahay been isla gaari doona cadaalada caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayeen isla gaari doona meel kasto oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doona ayaan garabka soo saari doona cadaawada Soomaaliland noo gelinaysaan ayaan falowgeeda qaban doona Faysalow gurigaaga iyo kaygu intay isu jiraan waad ogtahay adoon soo hor istaagin anaga meelaha nooga soo hadadasho oo ninkii saldhiga dhexdiisa nagu baaday ayri kama kortaaga hadidan moobilada kan ee numbarkayga garaacay ee numbarkayga ku jiro si uu uga dhaco saldhiga ayaa garabkaaga taagnaa oo hoostaada laga hadlayo lagu lahaa waxaade Cabdi Madoobi waar ka daayay maraga cad Xamse Cumar ku joognaa furay ilaahay maragiisa marxaatigiisa janaha furo inaan ka garan maayo waa qof islaam oo meesha taagnaa ka daayay ciidanka ka amar qaadan kariyo waar ka daayay gabadha gacanta oran kariyo ayaa dar meesha maxaan ku dhahdaa ku soo garab taagnaa marka hadii iskarab istaag iyo iskarabsi hadii aniga abaay xabaal ka soo hubsateen oo istiraadeen waa agoon oo istiraadeen ciidan ka daba hadli mayso oo istiraadeen ciidan soo agmari mayso oo hablaha caarka maalin walba intay dishaan oo xidhxidhaan oo baabaasataan halka la soo istaagtaan oo maxaan ku dhahdaa wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalan waxa ka dagaalanteen anagu ma aanan arag waxna lamiidaan wadaagin cuqdad baa meel la soo fadhidaanay tii anaga nagu hagardaamisaan oo nagu dishaan
adar manihin anagu dad aamusaya in kurka hore hadii la jaro kubabka meermeersha baan ku dhimanaa inta hadii la jarayo xaqaygii xaq hooyadii kama aamusi doono kamana gaabsan doono annaga aan idhi nootayada waan saxeexayna nootayada lacagteeda ana bixiyay in nootayada qoran Cabdimadoob ay ku kalifay nootayada maanta say soo horayso eebay kugu tahay shay mooyo Faysalow shay mooyo lafaaga inaad u qajishay lafaaga inaad u xishootay inaad maanta annaga na tiraado garsoorka la waafajinaya garsoorku wuxuu eegi doonaa waxaan qabno iyo waxay dadku qabaan laamaha garsoorku jananku uma taliya garsoorka isku keenkeen hadii garsoorka laftiisu noo marin waayena geedna xidid la'aan ma baxo walaalkay ay hooyaday dhashay ayaa hooyadii kaliin dabada ula taagnaayo cid u soo gelin weyday waxa weeyaan anagu manihin dad inta la jirqsado la baabiyeeyo ama meesha ka carara ama hoos u hadli kari waay war dulmiga saldhigyada ka jiro Ilaahay nagu iftiiminay dulmiga iyo tacadiga dadka ku haysaan iyo duqaanada iyo dhibaatooyinka saldhigyadiina yaaliya nadaafad darrada ayuu Ilaahayna tusay subxaanahu wa ta'aala warafkii ummadana waanu hadlayna inta anaga nagaadhay baa u saalan waxa ciidanku sameeyo anshuxuma aynkaas yar cadar aynkaas maalin walba ku dhacda haweenkii iyo hooyooyinkii inamada iyo ragga war waxa weeyaan waxa yaga anaga marag cad u yeeshay xarumaha garsoorka la tagaynaa Faysal waa dil ugu yidhi hadal oo anaga adiga lagu soo ka gudbay xaqayga laguma gudbi karo nabaradayda laguma gudbi karo waxaan ugu dhacay laguma gudbi karo waana urbaadaysaa waxa maanaan oran waanu hadli doonaa waanu calool hadli doonaa waxa naga raadinaysan baan oran doonaa Facebookada maanta waxay dadku qaadaadhigayeen in aad tidhi waxa iigu argagax badnayd oo iigu naxdin badnayd maalintii qarxii soo badhacay waa runtii degeerida abahay baa soo raaci lahayd oo maan joogmaan 12 bilood baan jiro waan garanaynin maalintaasna maalin qof kasto oo islaam oo damiirli ka damqaday maalinta dad iyo ciyaal anaga nagu soo kabaysan ku tiraadaan ciyaal oo hadlo waxa tiraadaan halkaas aan laga raacay anaga ma hataas cid noon isbaynaysana anaga xidhiid nagama dhaxeeyo cuqdadna anagu ma qabno bulshada Soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaasaan ku soo gabagabeynay bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta badan bulshooyinka Soomaalidu waxay la socotay in deetaacadi nagu dhacay oo la arbishay oo ani hooyadayba la dilay oo aan la wadaagay baraha bulshada iyo qaybaha warbaahinta kala duwan waxa la sugayay dadkii madaxda u ahaa dadkiina laayay ciidanka markaasi meeshaan tagnay ka ahaa waxay ahayd in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii daastaa masaraakiideed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedaniya oo aniga soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka toona lahayn abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa la igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahday halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bay xoog ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga aynantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaande ana sida harka cad u adeegina maana service bixinay laamaha kala duwan ee dawladdu wuxuu yiri nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yiri intay soo degtay askariga dhawanaanaysa wuxuu yiri garsoorkan la tigsanayna nootaayo sharciye saxiixeen
wuxuu yidhi cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysa waxaan leeyahay anoo arrimahaasoo dhan qodob dul istaagaya ta koobaad ee ah saacadda aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqada ama 6:40 minid inay ahayd baara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ee anigu aanan filaynba u bartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkin kan galay oo leeyga dhaqaajin waliba halkan dhigaa oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu hore u gal oo igu hada garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibihi xarun dawladeed yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlay waxay ahayd in been la sheego been run u eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel soo istaaga la yiraahdo arjuuqday iyo ku yiri juuqday laakiin may hayn in la yiraahdo halkaas ay xoog ku galeen iyo halkaas ay askari ku dhabanaanisay iyo halkaas ciidanka booliisku wax ku baahnay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo eheladaydii toona ay ka filayeen ciidan kara ma noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar mil dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas'uuliyad ku saaran tahay oo mas'uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu inta isu jiraan wada tahay oo si fiican baad noo garanaysaa xalay luqad kale ku hadlaysay inta noo timaadad eegi lahayd waxaanu qabno laakiin hal liba xarkaysa ma godlato marka aniga hadalkaagu arrinkayga ma daadifayn karo waxaan qabana ma nabaradan qabnana ma afuufi karo naga ma biin karo qofku waa inuu feedback kaga soo noqday eegaaye beedkaad ka hadashay ee aad anaga noogu jawaabaysay aad soo gasheed daadifaynteedii iyo duudsigayga iyo dulmigayga u soo gashay waxa faale lagaaga dhiibtay ba marag cad noo ah waxaan kugu boorinayaa inaad ku laabatay kuguma ogi damiir ku laabtay oo adiga iyadoo gurigayga kaagu inta isu jiraan aan adoona soo dul joogsan aniga iyo hooyaday gacan ciidan ugu dhacday oo nabaradayadii iyo wixii naloo geystay waxna dhaqaatiirtu cadeeyeen waxna ay kuwa naga muuqda korkayga ka muuqday yihiin aad arkayso daadifeeyay hadii aad maxaan ku dhaday damiir ku jiro aniga maanta horta iimaad jawaabteen adoo gurigaagu inta ay jiro aanadii soo galin waxaan intaaba ku soo dhaafaya beeni raad male afar nin oo waaweyn oo ninkii intuu jeelka iigu yimid taliyihii qaybta Muuse Xasan Kaahin intuu jeelka iigu yimid telefoonkayga un priority-ga siiyay ee janan ku xigeenku soo diray ee aan maxaan ku dhadayay oranin maxaa qabtaan uu ka mid yahay xalay ku ag taagnaa shaarka ciidanku maaha kuwa dadka lagu bahdilo oo wax bulshada loogu adeego cashuur baanu bixinaa magaaladan ku dhalanay baanu joognaa in la yiraahdo nabaradayada iyo wixii loo geystay gacan saarka nagu dhacay la duusiyo ma yahayn waxaan mar kale maragu qabsanaya bulshada reer Somaliland oo si fiican u taqaana axmadnimada iyo anshaxumada boolisku kula kacaan cidii ay haleelaan anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan marag cad u qabsanaya haddaan askari dhabanaaniyay 24 saacadood ma xidhnaan laha haddaan askari dhabanaaniyay si sibiqo la doonay in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn laha dee hadal iyo wax la yiri waxba laguma dhaafee nabaradaanu geysanay iyo dhaawacyadaanu geysanay waanagan hadlaynaa la hadloo hana la tuso oo ehel baanu ka dhalanay loo keeno
anaga laakiin shaarka dawladana lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay bahay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa bahay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay waa ayaan daro in maanta mar kale aniga niman calool waaweyn intay meel isu soo kay taagaan oo darajooyin isu soo kay sudaan ay yiraahdaan 2021 2021 sano kadib 12 bilood baan jiray maalintii aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyadan nasiib wanaag hadaan xabad ku dhufan Soomaaliland waa beelay isu yimid qaran haduu jiran cadaaladdeedaan heli lahayn lama maacay intaasoo meelood maxaan ku dhaday intaasoo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faysal iyo nimankii ag taagnaaba waxaan leeyahay maqaar saar waxa dar kulmi karaa ma jiro wixii geysateen ee shaarka dawladda ku geysateen idinka maxaan ku dhaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladdan ku maqnahay kamana hari doono wixii aniga iyo waliba hooyaday nagu dhacay wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax inta la yiraahdo in lagu baraq jabin karana ma aha anagu dhibanayaal baan nahay aniga hooyadayba waa la dilay shaarka dawladdan lagu dilay inta shicibna dilay oo dhaqaaqay naga mutagin waxa weeyaan inta meel la soo taagay dadka